عليكم ورحمة الله وبركاته. ديمتري مدفديف oo madaxweynihii hore dalka Ruushka haddana la taliya sare oo madaxweynaha dalka Ruushka Putin ayaa caawa ku dhawaaqay war la yaab leh kaas oo in Ruushka uu diyaar u yahay in Iran uu ka caawiyo samaysashada nukliyeerka isla markaana hadda hadii loo baahdo uu siinayo madaxyo nukliyeer. waa mid kamid warkii ugu cuslaa ee caawa ku soo kordho xaaladda bariga dhexe. qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinku heynayana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa caawa waraysi siiyay telefishinka CNN-ka isagoo ay ka muuqato niyad-jab iyo carab weyn taas oo la sheegay in uu ka qaaday weerarkii Mareykanka uu ku qaaday gudaha dalka Iran. maxay tahay sababta? meeshan iyana macluumaad muhiim ah ayaan idinku hayaa oo aan dul istaagi doonaa. qodobada sidoo kale caawa barnaamijka aad ku maqli doonto waxaa iyana kamid ah baarlamaanka Iran ayaa ansixiyay in gabi ahaanba Iran ay xireyso biyo mareenka Hormuz taas oo markale dhaqaalaha caalamka iyo shidaalka cirka geynayso. Mareykankana war ayuu ka soo saaray hadii Iran ay xirto biyo mareenka Hormuz in uu tallaabo adag qaadi doono. ugu dambeyn warbaahinta Wall Street Journal ayaa waxa ay warbixin cajiiba ka qortay weerarkii Mareykanka ee sida tooska habeenka ka dambeeya labada dhinac ay isu duqeynayaan. waxa caawa lagu waramayaa mar kale diyaaradaha Iran inay duqeyn ka wadaan qaybo kamid ah gudaha Israa'iil. dadweynaha Israa'iil ayaa lagu waramayaa habeenkii tobanaad qaar badan oo kamid ah inay ku hooyanayaan godad waaweyn oo qaar kamid ah ay ka muuqato wasaq iyo dayacnaan inay ku hooyanayaan dhulka hoostiisa. iyadoo dhanka kale lagu waramaya diyaaradaha Israa'iil inay iyana caawa duqeeyeen mar kale deegaano ay ka mid tahay Isfahan iyo qayb kale oo kamid ah dhulka reer Iran. laakiin aynu ku bilowna barnaamijkeena habeenimo caawa qodobka ugu xiisaha badan ugu yaabka badan oo warbaahinta caawa sida weyn ay uga hadlayso madaxweynihii hore dalka Ruushka Dmitry Medvedev isla markaana ah dadka ugu saameynta weyn dalka Ruushka waxaana la sheegay inuu yahay ninka labaad Putin kadib ee ugu saameynta badan dalka Ruushka. Dmitry caawa waxa uu ka dhawaajiyay war si weyn loo qaada dhigayo ama looga sheekeynayo. waxa uu leeyahay Mareykanka gaar ahaan Trump weerarkii uu ku qaaday gudaha Iran ma ahayn weerar macna sameynaya ama wax taraya ama xal ah laakiin waxa uu abuuray buu yiri dagaal cusub iyo xiisad cusub ayuu gobolka geliyay. xaaladdan waa uu uga sii daraya. waxa uu leeyahay Iran waa hadda ay dadajinaysaa si dhaqso ayayna u dhameystiranaysaa buu yiri hubkeeda nukliyeerka. tanna waxaa ka caawiyay Mareykanka iyo Israa'iil. Iran waxaa furnaa wadooyin kale oo lagula hadli karo waxayna diyaar u ahayd inay wada hadal ka gasho iyadoo og Israa'iil hub nukliyeer haysato. haddana wada hadal bay diyaar u ahayd inay kaliya ku ekaato samaysashada hubka nukliyeerka midda nabadda ah. laakiin duqeyntii xalay la duqeeyay goobo ay ka mid tahay Natanz iyo sidoo kale Fordows iyo xaruntii weyneed ee Isfahan waxba ma soo kordhin buu yiri. Iranna waa ay ku degdegaysaa inay samaysto hubka nukliyeerka. laakiin hadalkiisa qaybta yaab kale ayaa waxa ahayd wuxuu leeyahay Ruushka haddaan nahay waxaan diyaar u nahay in Iran sida ugu dhaqsiyaha badan hadii loo baahdo aynu siino madaxyada nukliyeerka taas oo mar kale adduunka gelinayso xaalad cabsi leh. waxay u muuqanaysaa adduunka in uu galayo dagaal saddexaad oo aan si loogu talagelin u bilaabanayo iyadoo khubarada qaar ay aaminsan yihiin hordhici dagaalka saddexaad ee adduunka baan u jeedaa in uu bilowdayba marka loo eego dagaalada caalamka ka socda gardarrada iyo dhibaatada lagu hayo dadka reer Falastiin dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka u dhaxayo iyo sidoo kale sida xiriirka caalamka uu si kala fogaanayo. ugu dambeyn dagaalka Israa'iil iyo Iran oo si qaraaraanayo duniduna ay la kala safanaysa. Pakistan, China iyo Ruushka iyo kuwa kale waxa ay la safan yihiin Iran. inkastoo Pakistan war yaab leh dhankeeda uu ka soo baxay oo warbaahinta Mareykanka kuwa Israa'iil waxay qorayaan hadal runtii aad argagax u leh. waxaa la leeyahay dawladda Pakistan waxayba hadda si rasmi ah ugu codaysay ay u soo sharaxday in Donald Trump uu noqdo maaragtay la siiyo waxa loo yaqaan abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka
ama shahaadada la siiyo dadka ka shaqeeya nabadda. waa xilli Maraykanka uu qayb ka yahay dagaalka lagu hayo Iran, dagaalka ka socda Falastiin iyo qaybo badan oo caalam ka mid ah. Maraykanka gudihiisa Trump hadda waxaa looga aqoonsan yahay in uu dagaal oogu isku bedelay, markii horena uu isku sharxayay inuu dagaalada caalamka dhameynaya. haddaba maalmo ka hor waxaa aqalka cad uu Trump ku casuumay taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Pakistan, sida aan horay barnaamij uga soo sameynayba, isagoo ay la soconin cid kale oo dhanka fulinta ah ama madaxda kale dalka Pakistan. waxaana xigay warka hadda soo baxay oo ah in Pakistan ay u sharaxday Trump in la siiyo abaalmarinta nabadda adduunka. waxay xaalad dagaalna waa lagu jiraa. Pakistan arintaas sida ay CNN ka qorayso cid u baahan ay ka soo akhrin karto iyo warbaahinada kaleba waxay ugu sifaysay sababta oo ay leedahay Trump waxa uu qayb ka noqday dagaalkii Pakistan India in la joojiyo oo India gardaradeeda uu gacanta ka saaro. taas oo macnaheedu ay tahay Pakistan may filaynin in Trump uu ka jirsan doono India maadaama saaxiib dhow ay ahaayeen. sidaa darteed ayay waxay leedahay Nobel Peace Prize ayuu qalbaa. si kastaba ha noqotee caawa Ruushka warkii ugu cuslaa ayuu soo saaray oo ah in uu isaga diyaar u yahay inuu nuclearkiisa gacanta ka saaro qayb ka mid ah madaxyada nuclearka dalka Ruushka haddii loo baahdo Iran. warbaahinta caalamka ayaa maalmahan waxay aad u hadalaysay maadaama Iran abaal ay u gashay Ruushka, muxuu Ruushka u gudi laayahay abaalkii loo galay. ilaa waxaa lala socdaa gantaalada iyo droneski qaar ka mid ah lagu weeraray Ukraine in ay ahaayeen kuwii Ruushka. haddaba Ruushka ayaa u muuqdo in hadda uu baraarugay abaalkaasna uu gudayo. si kastaba ha noqotee hadalkan ayaa la filayaa in uu xiisada wax weyn ka bedeli doono, waa cusubna uu ku barisin doono xiisada bariga dhexe ka taagan. waaya saaxiibada qiimiga leh waxaa inoo soo socdo qodob ku aadan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo caawa wajigiisa murug iyo carac ka muuqatay oo ka hadlay weerarkii Maraykanka uu ku qaaday qaybo ka mid ah xarumaha nuclearka dalka Iran. Netanyahu maxaa ku dhacay? aroortii hore saaka adduunka wuxuu ku soo waabarisay Trump oo dabaaldegaya aqalka cad oo sheegayo in la duqeeyo xarumihii nuclearka Iran dhulka la dhigay. laakiin sheekadii sida isu soo taraysay hadda wax cusub ah soo baxay. hadalka Trump iyo jawaabta uu bixiyay iyo waxa adduunka uu ka fahmay ayaanu dul istaagi doonaa. laakiin walalaha qiimiga leh aynu ku hormarno warbaahinta Wall Street Journal ay qortay, Al Jazeera ay ka soo xigatay oo ku saabsan weerarka lagu qaaday xarumaha kala ah Isfahan, Natanz iyo sidoo kale xarunta Fardow. muxuu ahaa weerarkaas? horta waxaa soo baxay sawirro muujinayo taariikhda markay ahayd 19 ilaa 20 bisha. waa maalmo ka hor, 2 maalin iyo maalin ka hor inta uusan Maraykanka duqeynin xarumahaasi, uusan u isticmaalin diyaaradaha qatarta ah B2 oo ay filayeen in la siiyo Israa'iil ama Maraykanku uu isticmaalo xarumahaas inuu burburiyo. 19ka sawirro laga helay dhanka iyo Google-ka satellite-ka sawirro uu qaaday ayaa waxaa la arkay xarunta Fardow oo mashquul ah. 21kina maantay ayuu weeraray saaka oo 22 ahayd la soco. ama xalay xilli dambe ayuu duqeeyay oo qolo dadka qaarna ay maalin u ahayd dadka qaarna habeen u ahayd. haddaba 19kii baabuurro badan iyo shaqaale badan la arkay xarunta Fardow wax ka daldalayo. sidoo kale 20kii bishana mashquul ahayd habeen iyo 2 habeen ka hor intuu Trump duqeynin ama Maraykanka uu duqeynay xaruntaas. waxaa loo fahmay in Iran ay ka qaadanayso hubkeeda iyo uraniumka si uusan Maraykanka u weerarin. waxaa la leeyahay Maraykanka wuu u sii sheegay, Al Jazeera ku qoranta Wall Street baa qoray, Iran waxaa loo soo marisay dhanka Turkiga in xarumahaas la weerari doono. taariikhda la weerari doono ayaa loo sheegay. sheekada yaab kale ayaa waxa ay tahay Maraykanku wuxuu qaldayaa oo ku ciyaaraya baa leeyahay Israa'iil. wuxuu sidoo kale jahwareerinayaa aragtida dadweynaha Maraykanka. inkastoo Iran aysan raali ka ahayn in dalkeeda la duqeeyo, haddana waxa ay ahayd arrin ay sii ogeyd. maadaama Ali Khamenei uu diiday in wada hadaladii uu soo fariisto, Maraykanka wuxuu go'aansaday in uu jawaab bixiyo. waqtigii uu siiyay 2 bilna inuu ka soo hormaro oo uu duqeeyo xarumahaas. weerarka saas u dhacay ayuu leeyahay Wall Street Journal.
waa sheekadii ugu yaabka badneyd yara si weyn loo falaqayo marka maxaa Netanyahu ka caraysiyay ayaad ku maqli doontaa barnaamijka qaybta dambe oo sheeko yaab leh ay ku jirto Trump wuu rabaa inuu Israa'iil qanciyo mana rabo dagaal inuu gala ayaa la leeyahay Iiraaniyiinta waxay iyana sheegeen inay xirayaan biyo marayn Hormuz oo sheeko waalan ah oo la leeyahay adduunka mar kale waxa uu galayaa mugdi iyo xaalad kale oo ciriiriya laakiin marka hore walaalaha qiimiga loo qodobadaas iyo qodobada la xiriiro caawa xaaladda Netanyahu uu ku jiro iyo dhiigga ku karsan iyo carada ka muuqato oo aan warbixin cajiibeed kaga diyaariyay xarumihii nukliyeerka dalka Iran waxa uu leeyahay Iran khatarteedii dhanka nukliyeerka wali waa ay jirtaa Israa'iilna wali khatartaasi waa ay wajahaysaa sida darteed wuxuu leeyahay Israa'iil waxay sii wadi doontaa weerarada ka dhanka maamulka Iran ilaa inta laga bedelo buu leeyahay rejiimka iyo nidaamka Iran oo dagaalka waynu sii labalaabi doonaa ilaa inta laga gaarayo isbedel rasmi ah oo ku yimaado khatarta Iran ay ku wajahaysa Israa'iil si kastaba ha noqotee hadalka Netanyahu waxa ka muuqatay ay leeyihiin dadka arrimahan aad u taxliiliyo ama ka sheekeeyo in uu kan iyo jabsan yahay weerarka Trump uu ku qaaday Iran waxa uu u fahamsan yahay baa leerinay tahay madadaala Trump uu madadaalinayo dhinaca Iran umana yani raahday dhinaca Israa'iil uma arkaba la leeyahay talaabadii uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump mid wax weyn ku soo kordhin karto dagaalka hadda ka dhanka ah Iran ee Israa'iil ay ku jirto waxa uu Netanyahu aaminsan yahay in hadda dagaalka Israa'iil kaligeed ay xaalad xun kaga jirto si kastaba ha noqotee gudaha Mareykankana waxa aad loo dhaliilsan yahay dagaalkan hadda Mareykanku uu galayo xilli la aaminsan yahay dhaqaalaha adduunka inuu aad u liito Mareykankana uu u baahan yahay dhaqaale ahaan iyo istiraatiiji ahaan dib inuu uga fakaro iyadoo Trump lagu eedeeyay in ciidamadii Mareykanka si lama filaana uu degdeg uga soo saaray furimo muhiim ay ku jireen oo ay ka mid tahay Afghanistan halkaas oo gawaari iyo hub gaaraya bilyan ka badan looga qabsaday ciidamada Mareykanka oo Taliban ay diideen in ay soo dhiibaan waxa Mareykanka lagu eedeynaya Trump hadii uu dagaal joojinayo oo muxuu mid kale u bilaabayay ciidamadii Mareykanka Suuriya Ciraaq qaybo kamid ayuu ka soo saaray isagoo dhahayay waxaan xoog saareynaa danaha Mareykanka gudaha isagoo sheegay inuu soo ku mashquuli doonin arrimaha dibadda iyo dawladaha kale si kastaba ha noqotee Trump farsamada yaab kale uu la soo baxay ayaa noqotay mid Netanyahu iyo kooxdiisa ciyaarta ku dabagediso oo xaalad adag dhex dhigto iyadoo Iran wali ay isticmaalayso gantaalaha halisa bulina burbur ku wado oo burburin ku wada qaybo kamida dhismayaasha iyo magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo la arkay qaar kamida dadweynaha Yuhuuda oo ka qaxaya deegaanadoodii iyo guryahoodii dad badan oo Israa'iiliyiin ayaa lagu waramayaa hadda inay qaxooti ku yihiin meelaha ay kamid yihiin Greek iyo qaybo kale Yurub kamida iyadoo muwaadiniintii dhalashada Mareykanka haystay aslaan Israa'iil ka soo jeedana hadda lagu waramaya inay dib ugu noqonayaan gudaha Mareykanka waayo walaalaha qiimiga loo ugu dambeyn Iran caawa waxa ay ku dhawaaqday baarlamaankeedana uu ansixiyay in la xirayo baarlamaanku uu ansixiyay waa loo codeeyay Hormuz ayaa la xirayaa Hormuz waa biyo marayn muhiim ah waa meesha ay maraan maraakiibta shidaalka caalamka ugu muhiimsan boqolkiiba 30 shidaalka adduunka waa meesha uu maro Iran waxay leedahay meeshaas way ku daysa waana la xiraya kadib markii Mareykanku uu ku soo xadgudbay hawadeeda duqeyna uu ka geystay qaybo kamid ah gudaha dalka Iran ayaa waxay aaminsan tahay talaabadii Mareykanku uu qaaday siyaabo kala duwan inay uga jawaabayso oo ay kamid tahay in ay beegsan doonto maraakiibta Mareykanka u joogo biyaha cas ee aan ilaahdee badda cas iyo sidoo kale qayb walba oo arkaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay qaar kamid ah dalalka Khaliijka iyadoo durbaba hadda ay bilaabatay Mareykanka inuu heegan geliyo ciidamadiisa u joogo bariga dhexe iyadoo dhanka kale Xuutiyiintana ay sheegeen heshiiskii Mareykanka iyaga kala dhaxeeyay in gabi ahaanba uu burburay uu ku eka xalay weerarkii Mareykanka kadib si kastaba ha noqotee xiisadda bariga dhexe ayaa hadda kacsan iyadoo xaaladda maalinta ka dambeysay ay kasii darayso wixii ku soo kordha xiisadahan isa soo tarayo barnaamijyada dambe ayaad ku arki doontaa tan iyo kulanti dambe waa walaalkiin Mustafa Cali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina haato assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh